بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijkeena waxaan idiin soo diyaariyay barnaamijka anigoo Cabdiciis Maxamed Xasan maanta waxaan ku qaadanaynaa barnaamijkeena casharka horta waxaan ku soo qaadanay barnaamijkii ugu horeysay sida loo soo bandhigaa ama loogu soo barnaamijkii ugu horeysay sida loo soo bandhigaa ama screen-ka sida qoraal loogu soo muujiyaa qoraalka ugu horeysay waa ku soo buujino hal ugu dhayn ku soo buujino maanta waxaan qaadanaynaa sidee variable qiimo loo siyaasno loona soo muujiyaa sidee userka qiimuhu soo geliyay loo soo bandhigaa iyo laba variable oo qiimo la isku dhaafsiinayo saddexdaas program ayaa insha Allah taala casharkan ugu bogan doontaan okay aan ku bilaawno programka ugu horeeyo ka hadlayo sidee qiimo variable ku jiro loo soo bandhigaa okay iska dirno programka ugu horeyso marka hore marka rabto inaad abuurto variable sidiisaba waa memory-ga ayuu space kaaga qabanaya sababta marka ugu horeyso aad rabto inaad declare gareyso variable waxa ugu horeyso ka fikireyso nooca variable-ka noqon doono ma integer buu noqon ma data type variable data type-kiisa marka hore ka fikireysa waxa rabto inaad soo bandhigto marka waxa ugu horeyso rabno inaad soo bandhigno waa integer variable ka rabno inta boosku nooga celiso data type-kiisu waa integer aan dhahnay variable name ay sheegayna tusaale ahaan age waxa la keedi doono waa age ka soo number ma imisa sana jirta waa number wuxuu qabo doono waa numberkuna waxa noogu qaabilsan integer waa hadda waa declare gareeno kaliya qiimo ma siin marka la rabo in qiimo la siiyo variable ka magaciisa marka la soo qaadanaysa kadibna equal ayaa dhahaysa dada jirto imisa jir baa tahay waxa jirto 17 aan iska dhaho hadda waxaan sameeynay variable ayaa declare gareynay kadibna initialization qiimo ayaan siinay variable-ka waxa kala jiro initialization and declaration one time la qulsi karo marka hore data type-ka waa qasab marka ugu horeyso intaadan sheyga bilaawaa inaad ka bilawdaa data type-ka variable-ka marka abuurayso awalan variable-ku wuxuu noqon doonaa data type-kiisa waa inaad sheegtaa waa inaad dhahdaa aan hal mar sameyno comment aan ugu qoraa data type structure of variable qaabka syntax-kiisa data type-ka ku sheegaysa kadibna variable name of the variable data type-ka waa ujeedaan kadibna waxa sheegaysa magaca variable-ka waa syntax-kiisa oo ka aan sameyno marka data type-ka waa integer dhahnay kadibna magaca variable-ka age-ka kadibna initialization hal mar oo siino ah 16 okay waa markaan waxa integer bes aan sameeyay dhowr variable marka rabto inaad soo bandhigto jajab maxaa sameeynay ayadana waxa loo adeegsadaa wax la yiraahdo float waxa loo adeegsadaa tiro jajab marka rabto inaad soo muujiso okay weight ko kale culays ko kale hadda culayskii kiilaadkii marka rabo inaad soo bandhigo waa float waa jajab marka rabto inaad declare gareyso data type-ka ku sheegaysa waa float weight culayskiigu iska waaye 48 aad iskaga 48.5 kilogram dhibic 5 waa bountiga markasta waxa loo adeegsadaa float waxaan rabnaa inaan soo bandhigo sidoo kale xaraf one word araba inaan ku soo bandhigo one word hal array maxaa loo adeegsadaa waxa loo adeegsadaa data type-kiisu jar sex jinsiga qofku yahay ma female ma male okay intaan arabna iyo sigana waa siinayna ta female ta f taan u qaadanayna female hadda male taane m taan u qaadanayna one word hal xaraf okay hadda waxaan sameeynay waan tirnay sorry jar aan dhahnay jar adaan dhahnay waxaan sameeynay jar marka dhahnay
sex aan dhahnay soo ma jinsiga qofka kadib waxaan dhahnay qiimaha sii siinay female aan dhahnay f-taas soo qaadanay kan kow integer baa declare gelisanay qiimaha siinay labaad float bounty aan sameynay qiimaha siinay kan saddexaadna waa xaraf markaa rabta inaa soo qaado jaar data typekiisu waa jaar variable kiisuna waa sex jinsiga kadibna xarafkii aan soo qaadan okay see lagu soo bandhigaa marka print f aan dhahaynaa soo bandhig markaa la rabto inaad soo bandhigto integer format specific goonida isticmaalayso waxay tahay percentage d waa xarka durug markaad rabto inaad float isticmaasho asigana waxaan dhahaysaa percentage f markaa rabto one word inaad soo bandhigto asigana waxaad adeegsanaysaa percentage c kadib calaamadaas gadaasheeda comma dhahaysaa kadib variable kasta magaciisa soo qaadanaysaa kan ugu horeyso waa h muxuu ku sidaa h variable kiisa soo qaadaa ku xigo weight comma dhahaysaa hadana weight aa soo qaadanaynaa kadibna waxaan soo qaadanaynaa sex oo jinsiga soo ma soo qoraya variable magaciisa hadoo ka qaldamo kadibna qoysku waa xiraysaa kadibna laba waxaa semicolon aad dhahaysaa hadda waa safeina manoo safeno safe aan dhahayna okay variables aan bixinaynaa variables okay waan waran gareynaynaa wax soo baxayo okay mid walba waxaa ku kaydisa ku soo baxay h-ka waxaa ku jira qiimaha ku kaydisa wuxuu ahaa 16 waa kan qaad saad aragtaan weight-ka sorry meeshaas waxaa laga rabay tira caadi baan sameeyay .000 dhaxaysiis markasta waxaa laga rabaa float-ka inay bounty raacsiiso okay saxagana waxaa ku kaydiyay f-taas oo noo soo saaray asiga automatic 00 u qaatay waxaa xalinay program koowaad waa soo xalinay hadda waxaan gelinaynaa qaybta labaad programka labaad oo ah write a program accept values from user input and print out keyboardkin oo laga soo geliyo qiimo kadibna lasoo daawaco programkan haddana sameynayna anigoo adeegsanayna variableska weli ku jirnaa jabtarkii ahay aan galno inta iska dirno tusaaleaan maxaa u baahnanay laba tiro in aan kasoo gelino keyboardka kadibna inskader taas ayaan ka sameynaynaa insha allahu tacaala saa hore u sheegna waxaan declare gareynaynaa laba tiro oo number ah numberska markaad declare gareynayna waxaan u baahnanay waxaan adeegsanaynaa integer variable magaciisa aan sheegaynaa waa x qiimo ma siinayno saa keyboardka loogu soo siiyo labo waxaan kaloo declare gareysanaa int y labadan variable waxaa lagu keedi doonaa insha allahu tacaala numbers laba number labadoodu integer ay isla yihiin laba mar la declare gariyay waxaan sameyn karnaa hal meel ayay ku declare gareyn karnaa int x markaa dhahno kadib comma ay u dhaxaysiinaynaa y labadan variable qiimaha data type-kooda waa integer waa isla yihiin hal integer ka dhaxeeyo started memory-ga laba space aan nagula qabnaa okay aan dhahna marka userka oo aan amrano soo geli qiimaha x enter value of x qiimaha x soo geli markuu soo geliyo scan f nagu qabo marka maxaa la qabanaya qiimaha la soo geliyay percentage d aan dhahayna ilaa waxa la soo dejiyo waa integer ah kadibna comma halkaan dhahayna marka comma dhahno aberson calaamadan aan adeegsanaynaa si exactly qiimaha loo soo helo x lambarka la soo geliyay meeshaas nooga soo akhri halkaasaa laga soo akrinaa lambarka tirada uu soo geliyay userka meeshaana laga soo akrinaa waa lasoo qabanaa kadib haddana waxaa leenahay print f enter soo geli value of y haddana qiimaha y noo soo geli y haddana markii la soo geliyo exactly noo soo qabo xf waxaa la soo geliyay y asigana waxaa waaye percentage d comma
waxaa leenahay y igu qabaa leenahay laba y markii lagu qabto exactly y waa lagu hayaa soo ma. okay hadda waxaan garanay qiimaha x iyo y labadaba waa noola qabto soo ma, labada tiro lasoo geliyo. waxaa naga dhiman tiradii isku diri lahayd. labadan waxay noo hayaa exactly qiimaha x aa lasoo geliyo waa lagu hayaa, qiimaha y-na waa lagu hayaa. labadaas qiimo waxaan kala u baahananay variable kale kaas oo noo qaban doono isku darka. waxaan u bixinaynaa int sum, labada tiro isku dira waa numberska. okay ayadu ma lasoo gelinaya sumka un keyboardka soo geli maayo, labadana keyboardka laga soo gelaya soo maahna. sum waxay la egtaa leenahay markii qiimaha x-ka wixii userku soo geliso x looguma qabanaha x lagu diray maxaa ku daraynaa qiimaha y oo asigana lasoo geliyay. labadaas qiimaa lasoo geliyay. sum marka maxay la egtaa labadaas la isku diray. kadibna waxaa noo soo daawacdaa print f, waxaa dhahdaa sum of two numbers, labada numberaa soo gelisay is waxa weeyaan. okay marka formatka la adeegsanayo markii la rabo in lasoo bandhigo number saan hore ugu soo sheegnay maxaa waa percentage d. okay comma waxaan qaadanaynaa abersan ma adeegsanayna, automatically waa soo daawacaynaa. variable nameka magaciisa adeegsanayna. maxaa rabnaa labadan tiro isku darkooda inaan soo bandhigno. okay waxaan leeyahay sum maxay noo haysaa labadii shay userka oo soo geliyay isku darkiisa ayaa ku jirto. sum waxay noo keedsantahay, waxaa noogu keedsan x-ka oo userka soo geliyay iyo x-ka y oo userka soo geliyay. labadan lasoo geliyay ayaa waxaa lagu keedinayaa isku darkooda sum, kadibna waxaa lasoo bandhigayaa sum. aanu aragna marka. okay waan garaynaynaa, execute baan tegaynaa, kadibna waxaa leenahay run. qalad baa dhacay meesha ka jiraan ogaanaynaa. inta fiiri print bisa dha print f aa ka maqan, si darteed ma aqbalaa print f. hoos ayaa qaladka laga fiiriyaa meesha errorka wuxuu meesha ka jirsa ogaato. print was not declared maba aqoonsanaba. haddaa printigan ma la aqoonsano print f like waxaa laga yaqaanaa standardkan saa hore u cashiradan hore ugu soo sheegnay. meeshaas ayay ka tirsan tahay print f aan dhahno marka functionkan waa la yaqaanaa markaas library-gaan ugu jira. okay filekaas ku kaysan. okay aan dhahno execute run aan ka dhahno. okay markaasoo kalen saa ujeedaan enter of x qiimo x soo geliyaa dhahnay 5 ayaan soo gelinay. waxaa la haddana qiimaha y soo geli 4 ayaan soo gelinay. 4 5 ku dar meeqa waay isku darkooda maxaa la rabaa inaan noo soo bandhigo 9 waa arkaynaa marka. saa ujeedaan the sum of two numbers is 9 oo noo soo bandhigay saan rajeynayno. okay programkii labaad intaas ayaan ku ekeensiinaynaa. markaan aan u leexana kan saddexaad maxaa lagu dhahay write the program swapping the values between two variables. variable qiimo soo siisa ama keyboardka ka soo geli ama labada dhinacba waa sameyn doonaa. okay waxaa ka soo gelisay intaaba ku siisaba qiimaha inta ku siisay labadaas variable siisay waa inay u kala wareejisaa. qiimaha x aa siisay y waa inuu qaataa qiimaha y na waa inuu qaataa x. okay aan sameyno marka waxaan dhanaa isku tiraynaa. okay waan qiimo siinaynaa inta sum xataa waa tiraynaa. x waxaan siinay 10 intii y na waxaan siinay 20. waxaan rabnaa inaan u kala bedelno marka x maxaad igu jiro 10 y na 20. y inay iisoo baxdaan rabaa. horta inta waxaan kusoo qoraa print f saa u kala fahano before swapping inta la kala wareejin kor qiimaha soo yahay saa aragno. before swapping inta la kala gudbin isoo daawac percentage inta la kala wareejin
percentage d percentage d laba tiraa soo daabici rabaa labadooda x qiimaha ku jiro kow x iyo y labadooda waa soo qaadana soo ma okay before swapping intoona kala wareegi dhicin waayo okay variable kala abuurna aan kusii keediyo qiimaha kusii keedsado waxaan ula baxa temporary okay intii kee marka halkaa markaa taagan tahay waxaa soo qaadane kan aa soo qaadane temporary hay la mid noqoto maxay la mid noqone x maxaa ugu jiro 10 x qiimaha ku jiro igu shub temporary muxuu yahay 10 maxaa faaruqa x faaruqa waxba kuma jiraan maadaama wixii ku jiray temporary aan ku shub soomaan x ha la mid noqoto y maxaa ku jiro mataqaana y wixii ku jirane x igu shub y maxaa ku jiro 20 maxaa lagu wareejiyey x kaa lagu wareejiyey soomaan marka ugu dambeysa marka y-da waa faaruq y-ne hay la mid noqoto temporary asal wixii ku jiro temporary meeqa ku jiro 10 temporary-gan waxaa ku jirto 10 oo x-ka faaruq markuu noqdo waxaa ku shuba 20 y-da waa faaruq soomaan y-da marka wixii temporary ku jiro y-da igu shub marka haddaan daawaceynaa print f iisoo daawac after swapping marka gala wareega la sameeyey percentage d kasiko percentage d de labada tiraa isla marka soo daabeera ama waa kala durjinayna after swapping markii swapping la sameeyey kadib inta print f la ida markaas waxaan badsanayna x wuxuu la mid yahay percentage d y-na waxay la mid tahay percentage d okay variable-ka x-na waa waxayna y-na waa u yeelina labadoodaba sidaasaan ku wacan saan sheegnay okay iska caadiyada marka si jawaaran gareyna waxbaa u dhexdhexaysiinayna si ay noogu kala cadaato hal sagiro ka wada dhigay /n dheh new line ka bilow kana new line igu sameey new line hadda way kala cadaanaya marka execute run dheh before swapping waxyar x isaan u kala cadeeya before swapping x-ka wuxuu la mid ahaa x wuxuu la mid yahay iyo after swapping markay taana y-na waxay la mid tahay haddaan si fiican u kala caddo marka before swapping x wuxuu la mid yahay saa u jeedaan 10 y-na 20 after swapping markii swap la sameeyey x saa u jeedaan maxay la mid noqotay 20 inta yaa la mid ahay waxaa la mid ahay y idan 20 la mid ah 20 loo soo wareejiyay x-ka y-dana waxaa loo soo wareejiyay 10 intaas ayaan kusoo gabagabeynayna insha allahu tacaala saddexdii program waan idlanay hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah